hanuun kastoo aad qabto oo nafta gala shakiya murana kana baahi kastoo diineed oo aad qabto quraan baa kaa daweynaya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala laakiin wuxuu u baahan yahay quraanku inaynu fahmno isagaa ina sugaya waxaynu u baahanay inaynu ilaahay in badan tala saarno barino quraanka waxaad akhrisaa ambiyo badan oo ilaahay baryaysa oo ilaahay baryadii ka aqbalay oo wax laga aqbalay oo wax bini'aadamka agtiisa fog uu ku yaan la aqbali karin nabi ilma dhali waayay oo gaboobay oo islaantiisii gabowday oo ilaahay isu cusboonaysiiyo ilma la siiyey mid badul liqday oo haddana kalluun sii liqay oo calool kalluun isagoo ku jira ilaahay baryay oo ilaahay ka soo saaray quraanku wuxuu inoo tilmaamayaa markaa qofka ilaahay dhab ugu xidhanay dhab u baryan ilaahay badbaadinayo حتى نبي الله محمد با إله إليه واحد كبد بادي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليل حتى أنا ننقو كسرين با إله يلي مكري قال ذو وضان وابا حقو دادو دوان كاري لهي باليدي وضو إيلان كاري لهي والراسخون في العلم مركي إلهي كورمي وحلوت المامي كو علم بيدك يا الراسخة يقولون إلى ذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهي قلبك يقصك نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنتو شاقي قلوبت بن آدم كوين إلهي قعنتي سكو جيران أن يكذب إلهي بريء يسوى لا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إله قلبك بن آدم قديو قلبك يقطع عضاضة حق يده قدي وعلينا وقبها هي عدم التعرض إلى الفتنة وحينو باهنا هاي إلهي ذكر سينا نبضنه ألا بذكر الله تطمئن القلوب انت أن لك أور من آخرة يا أجرك اللي هليه وحل سوه الرئيسية أدونك منفعوينه لي وحل إلهي ذكر قيسة كان هذا اللغو قال الله بسوه الرئيسين آياتك كدن بيا له كسي تلماميا لكن waxa lagu soo horeysiyay tan inuu wax kaaga tarayo ولذلك عبادات كودن قرآنك wuxuu tilmaamaya intaan aakhire la tigin adduunka inay wax ka taraan إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إلهي wuxuu tilmaamaya خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين با إلهي tilmaamaya طبعي بني آدم inuu nooca yahay mid markuu wax helana hunguri badan oo aan waxba bixin markuu wax waayana calaacal